aynu kor ugu qaadno oo aynu isu ilaalino oo aynu caafimaadka bulshada kor ugu qaadno waxa la farayaa dhammaan mujtamaca in ay mamnuuc tahay meelaha la isugu yimaado. waa uu hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo garwadeen u ah gudida ka hortagga corona ee gobolka Togdheer waxayna soo saareen awaamir iyo fariimo lagaga hortagayo xanuunkaasi balse ma ay shaqayn ilaa iyo hadda maadaama aanay muuqan wax ficil oo ay qaaday gudidu meheradaha ayaa la fadhiyaa iyo dhammaan goobaha la isugu yimaado marka laga reebo goobaha waxbarashada mana jirto ilaa hadda wax tallaabo ama ficil ah oo ay dawladdu ku qaaday magaalada Burco marka laga yimaado hadallada iyo fariimaha bilaa ficilka ah ee gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo gudida ka hortagga ka soo dirayaan xarunta gobolkaasi. aqoonyahan Maxamed Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa dhaliilay habka uu shaqeynayo maamulka gobolka iyo gudida ka hortagga corona ee heer gobol. gudida gobolka ee loo magacaabay inay noqdaan gudida ka hortagga coronavirus-ka waxaan qabaa gudi ilaa hadda wax ficil oo ay sameeyeen haba yaraatee aysan jirin. waxaanu arkaynaa ganacsigii gobolka Togdheer ee maqaxiyihii lagu shaahayay iyo meelihii goobihii la iskugu imanayay oo dhan oo wada camiran baynu arkaynaa. iyagu shalay waxaanu arkaynay iyagoo afka soo wada xidhay meel wanaagsan oo soo istaagay leh awaamirtaas ayaanu bulshada faraynaa. hase ahaatee awaamirta markaad bulshada farayso waa inaad ficil la timaadaa oo aad tidhaahdaa soo ciidamada booliiska la howlgeliyaa wasaaradihii ku shaqada lahaa ay dadka soo dhex galaan dabeetana si dadkaasi loo ilaaliyo. durhad galab ayay ahayd markii wasiirka caafimaadku ku dhawaaqay in 2 kiis oo corona ah laga helay gudaha Soomaaliland waxaana hal qof uu wasiirku ku sheegay magaalada Burco balse gudoomiyaha gobolka Togdheer oo 12 saac kadib la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inuu caafimaaday qofkaasi taas oo warwar weyn ku abuurtay bulshada gobolka Togdheer hadallada isdhaafsan ee ka soo yeedhaya mas'uuliyiintooda iyadoo la isweydiinayay shaybaarka jawaabta dambe ee uu ku dhawaaqay gudoomiyuhu. wasiirka caafimaadka ayaa wuxuu yidhi 2 qof baa laga helay coronavirus midna uu joogo Berbera midna uu ku sugan yahay gobolka Togdheer ee Burco. hase ahaatee qoladii caafimaadka u xil saarneed gobolka Togdheer waxay sheegeen inuu ninkaasi caafimaad qabo. waxaan isweydiinaynaa yaa run sheegaya oo arrinkiisu xaqiiqi ah. waxaan kaloo arkaynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ee aynu xafiilta naga dhaxeeyo oo iyaduna raacday gobolka Togdheer barasaabkeeda hadalkii ka soo yeedhay ee ahaa inaan qof xanuunsanaya uusan jirin iyaguna yiraahdeen ilaa hadda Soomaaliland kuma hayno qof xanuunsanaya oo u jiifa coronavirus. shaybaarku gudoomiyaha gobolka Togdheer uu soo saaray uu leeyahay ninka uu caafimaad qaba war markuu xanuunsanayayba halkan waa lagu baari kara waayay caafimaadkiisa iyo xanuunka inuu qabayo in kale shaybaarkiisa waa la dira dabeetana dhowr cisho kadib dabeetana ribood baa soo noqday ninkaas inuu xanuunsanayo xanuunkana uu hayo. hase ahaatee halkii xanuunkii dib loo celin lahaa la oran lahaa bal inuu ka caafimaado in kale dib haddana loo baaro barasaabka ka hadlayo yidhi ninkii waa caafimaad qabaa. waa mas'uuliyad darrada ka muuqata gobolka Togdheer baan oran karaya mas'uuliyiintiisa. waxaanu arkaynaa Hargeysa waxay buufinayaan oo ay la dagaalamayaan xaaladda baqdinta weyn laga qabo. wax dhaqdhaqaaqa oo halkan ka bilowday iyo wax hadal mooyaane haba yaraatay bulshadan ma arkayso. ganacsigan maanta aan arkaynaa haddii xaaladdu sii adkaato halis buu ku jiraa. si kastaba xaalku ha ahaadee xanuunka corona oo si weyn u aafeeyay guud ahaanba dunida ayaa walaac weyn ku abuuray bulshada gobolka Togdheer habka ay u shaqeynayaan gudida ka hortagga xanuunkaasi ee gobolka Togdheer oo aan samayn ilaa hadda wax ficil ah marka laga yimaado fariimaha ay soo marinayaan hawada. Xabiib Ciga Xasan, telefishinka Ariel, magaalada Burco.